السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رير حمد ناتشرالز aad baan idin salaamay saxaabtayda waana xamdi shukri idin kaga imaanay channelka xamda naturals maanta hortaan idin salaam mar labaad iyo mar saddexaad salaan sare dhamaantiin salaanta xaqaheed waan ku salaamay Soomaalina waan ku salaamay salaan sare dhamaantiin baad leeyahay so xoogaa baan kala maqbaqayn bariyahan bil amal ama ka badan waan maqnaa oo malaynayaan maalin dhexdaasna video yar oo gaaban baan geliyay so anyways حلده كرالي هذا إن شاء الله وحن ما أركتي ده وحليس كم مشغول سنة هاي الدنيا ده يواري ما كلهم مهمة يوحياله سكبنا ولا سكعير سنة مركا يوتيوب وحلو وياي وقتي ها هسه هاتين إن شاء الله حتى كبعدي بإذن الله صوت عينا ده كنستم ده دخصه يا استبتشوق أو إذن لصو شير قرية وح مركا ما أنت محايدين مداوية ما شاء الله ما أنت محايدين ودا وحياله هيجي أن أدتش على aan jeclahay markasta inaan ka hadlo oo channelkan waa hobbigayga aan ku furay iyo channel hore iga xirmayba ko ya 2017 markii ko aan YouTube bilaabay ya waxay ahayd waxaan ku bilaabay essential oils ya sayid muhiimad saliidahaas oo la essential oils ayaan ku bilaabay jeclaa inaan ka hadlo iyo waxyaalaha maaragtay naturalka beautyga maaha ya maaha beautyga iyo waxyaalo la isku cadeeyay waxyaalahaas wax ma aragtay waxa aan jeclahay inaan ka hadlayo waxay ahayd kuwaas iyo go'aankayga xoogaa hadda channelkaygan cusub ayaa wuxuu ma aragtay u soo galgalay sheekooyin aan ku soo diray dhimale waa loo baahan yahay wax aniga isoo riixayay oo aan rabay inaan ka hadlo weeyaan anyways marka maanta hadalka idinku noqday maanta waxaan rabaa inaan ka hadlayo waa maxay maanta waxaan ka hadlanaa way ka daadatay waxaan ka hadlaynaa geed muhiim ah dhulkeena hooyo laga helo kaliya baan dhihi karaa kaliya dhulkeena hooyo aad caafimaadkiisa laga yaabay iyo sida loo soo isticmaali jiray sanadadii hore bariyihii hore sanada intaasoo kun oo sano ka hor baan ka hadlayaa hadda maaha ya adduun weynaha laakiin waa khayraadka inaga gaarka inoo ah Soomaali ahaan khayraadka gaarka inoo ah weeyaan oo inaga kaliya leenahay ya oo adduunku hadda helayo hadda adduunyadu discover ku sameynayso adduunyadu hadda kale magareynayso adduunyadu rabaan inay ayagu ay yiraahdaan annaga iska leh ya geedkaasi waa maxay waa malmal weeyaan ya magac kale uma aqaan laakiin malmal afka ingiriiskana maxaa lagu yiraahdaa MYRRH مركز في إنجليزي كان بيرادا بصومالنا ململ بانيغا وقانا أف عربي مرة ميلا منشور مرة خرار بامرين في عربك anyways انت ساينا كفلان وقيت كاس مركا essential oils كي سوي تالا هدنا ململ أهان تيسا برقي هورا لما هلي ترينيا ودمدا وسترينكا لكن هدا ميل كستا أمي صنبال حتى كده حليسا everywhere وادكي حليسا waxaa la isku raacay inay Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Yemen iyo Oman inta kaliya uu ka baxo koona Soomaaliya koob meesha hodanka ka ah waa Soomaaliya wax yar baan ku darayaa marka intayna faa'iidadiisa aanan u gudagelin waliba faa'iidada cajalkan ka dhigayaa intaan faa'iidadiisa aanan u gudagelin iyo muxuu qabtaa horta geedkan waa Soomaaliya hadda joogtid iyo meel kale hadda joogtid oo ilaa qofku isagoo meel kale hadda joogo wadan uu ka sameyn karaa Soomaaliya kalena uu ku leeyahay dad baan uga dambeeyo u jooga geedkaas haddaad guri leedahay gurigaaga ku beer Soomaaliya kuugu yaala antibiyootik uma baahnid asaga un baa ku kaafinaya wixii antibiyootik aad uga baahantahay antibiyootics nabar qalajiyayaasha oo kale kaasa kaaga filan haddii nabar kugu dhaco waa cudurrada ugu badan ee Soomaaliya haya waxa weeyaan infection yar weeyaan cudur kale ma ka jiraba laana 9 bilood baa hadda ka soo maqanahay ma mise wax saas oo kale adoo close there marka geedkana mabcidba ma taqaana wala islaamaha jilicsan iyo maamooyinka waaweelka iyo dumarka umulay iyo waxaas kaliya xooga iyagoo lagu yeesay kaliya la yiraahdo ayaa isticmaala laakiin walaal haddii aad joogto Soomaaliya dalkeenana ku nooshahay waa dahab geedkan iyo ogow ya hadda dalkeeni ku nooshay dahab weeyo oo geedkani marka waxaan leeyahay horta maanta kana ka hadlaynaa intaasina waa tisbaahin yaro dheeraada hadhowdan ajalkana bidna ku soo qaban doonaa oo isticmaalkiisa marka waxaan leeyahay marka faa'iidooyinkiisa ka hadlayno horta waxa la yiri qolyaha sayniska aan wax ana baxtigan ka sameeyay
maaragtay la qaybsaday qoryaha sayniska khubarada sayniska geedkan waxay dhaheen intaas oo kun oo sano ayaa la isticmaali jiray waxay dhaheen oo sheegeen sida King Solomon bay dhahaan ayaa King Solomon waxay weeyaan Nabi Suleyman ambiyadeenii hore ay isticmaali jiray bay yiraahdeen ayagu dee tooday ku base garaynayaan iyo wuxuu u sheegayo Bible-ka iyo waxaas iyo waxay kale oo dhahaan Old Testimony waxa weeyaan basically think maybe waxa weeyaan waxay ka wadaan sheeg scriptskii hore bay leeyihiin oo diinta ah ilaa iyagu way bedelaan markasta markasta wax yaroo injiil iyo wax yaroo tawreeda iyo waxaas isku qalqatan yaro quraankeena oo al-furqaan ay ka soo qaataan ay isdhahan u shaqeynayaan ay run u maleeyaan marka ay ku kacsanayaan maaragtay iyaga awrkooda waxay dhahan Soomaali qofkaas awrkaaga ugu kacsanaya bay isku keenaan saynisku marka bidbid yar waa aragteen ayuu xataa aragtay waxyaalaha aayaadkeena iyo quraankeena iyo axdiisteena intaasoo kunoo sano ka hor ay inoo sheegeen ay hadda la ogaanayaa markaasay soo bandhigayaan oo tartiib soo sheegayaan marka hadda kan dabtiibu ku jiraa weli waxaa lagu leeyahay malmalka ama meerka lagama hayo complete research oo laga sameeyay calaashaan research dhammaystiran oo laga sameeyay ma jiro oo dee head laga gaaray laakiin waxay leeyihiin weli waxbaa dhiman baaritaankiisii calaashaan weli waxay ku qabaan wax ka badan dee inuu xataa cudurrada waaweyn inuu maaragtay ilaa weyna waaxde inuu daweyn karo marka weli kama ay haystaan maxay haytooy Allahumma salli ala Muhammad research buuxa oo laga helay laakiin wuu socdaa waa la baarayaa marka geedka inaga caynkaas weligan waynu isticmaali jirnay waxaa la ii sheegay gabdhaha marka ay umulaan miyaa gabadha ugu gubtaay oo kale in la marin jiray mise gabdhaha marka la gudayo saas oo kale waxaa kaloo nafraha in loo isticmaalo taas anaaba aqaanba waa intaan ka hayo Soomaali ahaanteena isticmaalkeeda marka dadkuna way la wadaagi karaan iyo waxyaalaha kale loo isticmaalo isticmaal ahaantana waxaan dib baan ugu dhigin doonaa cajil kale laana hadda waqtiga uu gaaban yahay marka inta hadalka hadda aan kusoo gaabinaya waxaa weeyaan indha shareerkayguna waa idin salaamaya maasha Allah waxaa weeye number 1 geedkaas malmalka ha la ogaado ha la teekeer gareeyo ha la dhaqaaleeyo ha la xanaaneeyo beero gaar ah laga samaysto laana adduunku hadda wuu isku dilin rabaaba wax badan oo dhulkeena ka baxa ayaa adduunyadu hadda kaliya waa meelaha kaliya oo natural resources uu ku keep garaysan yahay waa Africa waxaan ugu sii qanisan Soomaaliya oo kale ugu qanisan laana Soomaaliya waa meel buluushka ku baxa uu yar yahay ilaa waxyaalo yar yar oo lagu qubqoomooga buluushka ku baxa uu yar yahay Allahumma salli ala Muhammad isticmaalka warshado ma haysano ma hawada ma xumaynayaan dhirta inaga iska dhameeyay dhirtii wageedka waa la goynayaa laakiin ayaga dhib ma laha hal geedo ay helaan oo kamid ah geedka malmalka oo kale ama geedka luumaanta oo kale oo ay qaataan oo meelo kale ku beertaan ayaa wax kasta uga fiican marka waxaan ogolahay hadda hadalkan kusoo gabagabeynaya insha Allah haddaad dulkii joogtid aad samayn kartid please dhaqaale maxaa la dhahaa geedka la yiraahdo malmalku geedku ka baxo waxaan maleynayaa malmalku waa xabagtan geedkuna magac kale uu khasab yeelan karaa haddii dictionary-ga Soomaaliga la fiiriyo khasbiyan haddii geed ahaantiisa malmal la yiraahdana kale anu malmalka aan baa aqaana laakiin geed ahaantiisa malmal haddii la yiraahdo ama geedku magac kale leeyahayna dee taasna waa la soo wadaagi karaa waxaan rabaa inaan barto wixii iga maqan laakiin Soomaaliga waxbaa dhacay Soomaaliya alxamdulillah waxaan leeyahay waa garanayaa maasha Allah si fiican laakiin wax kastaaba waxay leeyihiin waqti luuqad iyo naxwo meel ka yimaadeen iyo maartay ficil iyo feeb iyo wax la yiraahdo marka taasi waa taas sheekadii meel kale ila aadiyo grammar brusho waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada channelkayga saas baan horta inaan kaga tagayaa maanta waa malmalka waa hordhac yar cajilku isticmaalkiisa iyo muxuu qabtaana waa in la soo wadaagi karaa cajil kalaan kusoo wadaa oo kusoo diyaarinayaa lianna buugga inaan ka akhriyo essential oilka buuggan soo jeedaan badal badan noocaas ku qoran marka inaan waxyaalo badan ka akhriyo oo intii tabartaya aan soo diyaariyo oo maaragtay mufiidkeeda ayaan soo wadaa biidnillah
marka waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta shareerka raacaa باي channelka subscribe saara share gareeya wixii talo iyo tusaale waa xaqiina aniga waa dadaalka idinkana waa heed ducada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu